عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان باقيارتنا داوانيسا كسو دوادا وركي عالمكا wadahadaha kala ka daawatan telefishinka madaxa baran ee Barsan TV stuudiyihiisa koowaad ee magaalada Hargeysa warkana daawadayaal waxa caawa diyaar ah aniga waa Cabdifaax Maxamed Cabdi qodobada warka ugu doorka roolana daawadayaal waxa kamid ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa ka hadlay dagaal maanta ka dhacay magaalada Badhan oo u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garadag ee gobolka Sanaag daawadayaal kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon imika iyo haatan ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa ka hadlay dagaal maanta ka dhacay magaalada Badhan oo u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland sida uu warkaasi nagu hayo wariyaha Maxamed Daahir Xasan Indhayare wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa ka hadlay dagaal maanta ka dhacay gobolka Badhan oo isku farasaareen qaar ka tirsan ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maleeshiyaad ka socda maamul goboleedka Puntland waxaana wasiir Cadami uu sheegay in khasaaro culus u geysteen maleeshiyaadkaasi ka socda Puntland waana kan wasiir Cadami oo ka hadlaya wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garadag ee gobolka Sanaag sida uu warkaasi nagu hayo wariyaha Saddam Xuseen wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Xaashi Cabdi oo ay weheliyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdilaahi Saxardiid iyo wasiirka wasaaradda dibadejinta Cali Ciid Reegal iyo wasiir dowlaha wasaaradda dawladda iyo hawada Axmed Nuur Faahiye ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada taariikhiga ee Garadag bishada ku dhaqan degmada Garadag ayaa ilaa saaka safaf dhaadheer ugu jiray sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen wafdigan ayaa laga hortagay tuulada Shiisha shacabka reer Garadag ayaa kala hortagay caleemo qoyan isla markaana ku dhawaaqay erayo iyo halku dhigyo ay ku soo dhaweynayaan wafdigan ugu dambeyntii wafdiga ayaa u kicitimay geedka nabadda ay degmada Garadag caanka ku tahay waxaan halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay maayarka degmada Mudane Faarax Aadan Ciise oo ka hadlay aanu ku jirno runtii gobolka Sanaag hawl aad iyo aad u adag oo ah hawshii diiwaangelinta kaarka codbixiyaasha la qaadanayay taasoo ku jirta maalintii labaad mudane wasiiro haddaan idinka warbixino arrintaas si fiican bay uga bilaabatay gobolka Sanaag waxaana sidoo kale halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay bulshada ku dhaqan degmadaasi waxaadu kaga qaldaminna haybtayadu cidda ay tahay waa kulmiye waa sumadda kulmiye halka kulmiye weeye sumadda kulmiye ee degmada Garadag leedahay lama dhogorlaami karo xoolahaas wada laga bedel laakiin Garadag sumadda lama bedel karo Garadag waa kulmiye haddana maalin saar koo qabto ama ay saaciido soo bidaan waxay weyn ogon lahay waa masuux weeye hase yeeshee waxaan leeyahay Garadagna waa la yaqaanaa oo laguma yaqaano reer Garadag iyo deegaanka dadweynaha Garadag gawaarraa reer Garadag laguma yaqaano laba gardaaq reer Garadagna laguma yaqaano gobolnimo siyaasadeed laguma yaqaano waa dad maluugaha iyo moorada siyaasadda ka faaliyo yaqaana Saddam Xuseen telefishinka madaxa bannaan ee Barsan TV magaalada Hargeysa saddex askari oo ka tirsan ciidanka booliska Mareykanka ayaa lagu dilay gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka waxa warkaasi noo soo diray wariyaha Cabdirashiid Cismaan saddex askari oo ka tirsan booliska Mareykanka ayaa lagu dilay magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana ee koonfurta wadanka Mareykanka weerarka waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex askari oo midkood ku jiro xaalad khatar ah saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in garanaysa sababta loo dilay askartaasi ama dilkoodu xiriir la leeyahay weerarkii 2 toddobaad ka hor ay boolisku ku dileen nin madow lagu magacaabi jiray Alton Sterling ninka toogashada geystay ayaa isna waxa dilay booliska waxaana lagu magacaabi jiray Gavin Long haasoo ka tirsanaan jiray ciidamada Mareykanka waxaana uu ka soo dagaalamay sanadihii 2008-2009 dalka Ciraaq 29 sano jirkan ayaa waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda African Americanka madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa sheegay in aysan wax qiila loo sameyn karin weerarada u dhaxeeya ciidamada ammaanka iyo dadka madowga waxaan ugu baaqay dadka Mareykanka inay midoobaan kana fogaadaan hadallada kala qaybinta abuuri kara Mareykanka waxa toddobaadyadii ugu dambeeyay ka jiray weeraro u dhaxeeya ciidamada ammaanka iyo dadka qowmiyadda African Americanka ee ku dhoon wadanka Mareykanka Cabdirashiid Cismaan Barsan TV Hargeysa shirka madaxda
Afrika uga socda magaalada Kigali ayaa la filayaa in ay ku doortaan madaxda cusub ee maamuli doona Midowga Afrika sanadaha soo socda sida uu warkaasi noogu hayo wariyaha iyaga Saciid Faarax. waxaa la filayaa in hogaamiyayaasha dalalka Afrika ee ku shiraya magaalada Kigali ay dooran doonaan xubno cusub oo maamuli doona Midowga Afrika waxaana maalmihii u dambeeyay socotay hadalhayn la hadalhayo in doorashada dib loo dhigi doono balse waxaa taasi beeniyay madaxda Midowga Afrika oo soo saaray qoraal musharaxiinta u tartami doona jagada gudoomiye Midowga Afrika ayaa ka kala socda dalal kala duwan oo Afrika sida Uganda, Botswana iyo Equatorial Guinea waxa qofka ku guuleysan doona uu bedeli doona Nkosuma Dlamini oo ka soo jeeda Koonfur Afrika sidoo kale waxa hogaamiyayaasha qaaradda la filayaa in ay maanta ay ka arrinsan doonaan la dagaalanka argagixisada iyo in ay yeeshaan sanduuq dhaqaale oo u gaar ah la dagaalanka ururada xagjirta ah ee Afrika. Saciid Ibrahim Faarax, Barsan TV, magaalada Hargeysa. daawadayaal waxa intaas nagaga eeg war waxaan idinka haynay daafaha caalamka tan iyo kulanti dambe waa aniga Cabdifatax Maxamed Cabdi iyo barbaarti Barsan idinkaga tagaysaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.